بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ee, waxaan maanta ka hadli doonaa ama aan u gudbi doonaa tenniskeena afraad ee ah simple future tennis. Haddaan dib isku xasuusino, waxaan ka soo hadalnay tenniska koowaad ee ah present continuous tennis. Waan soo qeexnay wax uu ka hadlo, waan soo sheegnay. Sidoo kale waxaan ka soo hadalnay formula uu ku shaqeeyo tenniskaasi, waan soo fahnay. Sidoo kale waxaan ka soo sheekeynay example isagoo hoos yimaada tenniskaas oo ah present continuous tennis. Sidoo kale waxaan soo xalinay exerciseyo kuwa Soomaali ah iyo kuwa English aan soo xalinay, waan soo fahnay. Dan waxaan usoo gudubnay tenniska labaad oo ah simple present tennis. Isagana si la mid ah waan ka soo hadalnay waxyaabaha oo sheego ama uu qeexo, waan soo sheegnay. Sidoo kale waxaan soo sheegnay ama waan ka soo hadalnay formula uu ku shaqeeyo tenniskaasi, waan soo fahnay. Sidoo kale waxaan soo sheegnay ama soo falanqeynay example-lada hoos yimaada tenniskaasi. Sidoo kale waxaan ka soo shaqeynay ama soo xalinay exerciseyo oo isagana hoos yimaada oo ku saabsan tenniska labaad oo ah simple present tennis. Haddii ahaan lahayn kuwa Soomaali ah iyo haddii ahaan lahayn kuwa English oo tennis loo bedelay tennis kale. Sidoo kale waxaan ka soo hadalnay tenniska saddexaad oo ah simple past tennis. Isagana waan ka soo hadalnay qaabka uu shaqeeyo, sida uu shaqeeyo. Sidoo kale waxaan ka soo hadalnay formula uu ku shaqeeyo, waan soo fahnay. Sidoo kale waxaan ka soo hadalnay example ama soo xalinay example hoos yimaada tenniskaasi oo ah simple past tennis. Sidoo kale waxaan soo xalinay exerciseyo oo tenniskaas hoos yimaada. Haddii ahaan lahayn ayagana kuwa Soomaali ah iyo haddii ahaan lahayn kuwa English oo loo bedelay tenniska loogu sii bedelayo. Maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno simple future tennis oo ah tenniska afraad. Balse inta aan u guda gelin waxaan rabaa channelku waa channel cusub. Haddii uu yahay markii koowaad ee aad daawatay channelkani, fadlan adigoo maasan subscribe, share, like intaba dhag noogu sii si aad u hesho casharo grammar, tennisyo, conversationo, chit-chat intaba si aad u hesho adigoo maasan oo na ku xiisi geliya. Marka yaa laga baqiilin, hala share gareeyo, like-na hala saaro, subscribe dhag lagu siiyo. Yaa la baqiilin, hala saaro. Okay, intaas waxay ahayd codsi aan u soo gudbinay asxaabta ama ardayda ku xiran channelkani. Okay, simple future tense. Horta inta aan u guda gelin sharaxaad, waxaan rabaa sharaxaad hordhac ah oo kooban inaan ka bixiyo. Horta tenniska afraad ee simple future tenniska horta isaga ahaan wuxuu ka hadlaa fal dhici doona. Wuxuu ka hadlaa fal dhici doona berito, sanadaha soo aadan, daqiiqadaha soo aadan, waqtiyada soo aadan. Fal dhici doona ayuu ka hadlaa tenniskani. Waan samay doonaa, waan gaari doonaa, waan aadi doonaa, waan dili doonaa, waan dhigi doonaa, waan sharxi doonaa, waan fadhiisan doonaa, waan bixi doonaa. Intaba maxay yihiin wax walba oo future-ka ama tomorrow ama mustaqbalka la qaban doono ayaa looga hadlaa tenniskani. Tenniskan dhacdiisa waxa waaye in laga sheekeeyo. Wuxuu ka hadlaa dhacdo dhici doonta. Ma ahan dhacdo dhicisa, ma ahan dhacdo dhacday, ma ahan dhacdo dhacda. Waa dhacdo dhici doonta oo loo socdo. Waa dhacdo loo socdo oo dhici doonta, waa oo la filayo dhici doonta. Intaasi ayuu ka hadlaa tenniskani. Okay, what is a simple future tense? What is a simple future tense? Maxaa la yiraahdaa tenniska afraad ee ah simple future tense? Okay, simple fudud, future mustaqbalka, tennis dhaca, isiisad waxaa loo isticmaalaa to express in lagu qeexo ama in lagu muujiyo an action ficil which ficilkaasoo will happen dhici doona in the future mustaqbalka. Simple fudud, future mustaqbalka, tennis dhaca, isiisad waxaa loo isticmaalaa to express in lagu muujiyo ama in lagu qeexo an action ficil which ficilkaasoo will happen dhici doona
in the future mustaqbalka. Okay, tenniskani waxaan dhahnay tennis kasta wuxuu leeyahay astaan lagu garto. Tennis koowaad waxaan soo sheegnay inuu yahay fal hadda dhacayo oo faraha lagu hayo inuu yahay maxaa noo cadeynayo soo dhahnay sax. Waxaan dhahnay waxaa noo cadeynayo adverb of time oo now ah iyo verbka lagu darayo ing. sidoo kale noo cadeynaya happening sax. happening eed maxaa lagu daraa ing lagu daraa marka maxay noqotay marka happening ee noqotay marka. sidoo kale tenniska labaad oo ah simple present tennis now. isna waxaan dhahnay inuu yahay fal ama dhacdo maalin kasta dhacda. waxaa noo cadeeyaan dhahnay esta oo happening eed waxaa lagu daraa esta lagu daraa maxay noqonaysaa happiness. which happiness dhaca kaasa marka estaasa noo cadeynaysa inuu tennisku yahay mid maalin kasta dhacdo inuu yahay ama dhacdo maalin kasta dhacdo inuu yahay. sidoo kale tenniska saddexaad aan ka soo hadalnay. tenniska saddexaad waxaan dhahnay waa dhacdo dhacday oo laga soo tagay waa past hour. inay dhacdo dhacday ama fal dhacay inuu yahay maxaa noo cadeynaan dhahnay waxaa noo cadeynaan dhahnay labo. tenniska magaciisa wuxuu yahay mid past ah ila simple past ah u dhahay. tennis magaciisa wuxuu yahay mid past ah. sidoo kale waxaa noo cadeynayo happening ahead waxaa lagu daray ed oo waxaa lahay happening. which happening alla marka waxaa noo cadeynaan dhahnay tenniska magaciisa oo ah simple past tagay waa pastigaasa tagay ah. kan labaad noo cadeynaa wuxuu yahay dhahnay happening ahead happening alla ed lagu daray dhacay ee noqotay marka kaasa noo cadeynaa marka aan soo gudbin tenniskani maxaa noo cadeynaa inuu yahay tenniska afraad ama tennis fal dhici doona ama dhacdo dhici doona inuu yahay maxaa noo cadeynayo maadaama aan soo sheegay in tennis kasta dhacdo uu yahay waxaa noo cadeynaa soo sheegnay sax. kanna marka maxaa noo cadeynaa inuu yahay tenniska inuu ka hadlo dhacdo dhici doonta ama fal dhici doonta inuu ka hadlayo ma ugu saabsan yahay maxaa noo cadeynayo waxaa noo cadeynaa waxay tahay tenniska magaciisa oo future abuu lahay waa wax dhici doona waa. kan labaad wuxuu yahay will maxaa dhihin happening aan dhihin sax. kan maxaa la will happen. wiltaasaa noo cadeynaysa inuu tennisku u yahay ama tenniska uu ka hadlayo dhacdo dhici doonta ama fal dhici doonta inuu ka hadlayo waxaa noo cadeynayo tenniska magaciisa oo ah simple future iyo will happen. okay marka waxaa fahmayna intaasna aan soo gudubnay. tenniska wuxuu leeyahay formula uu ku shaqeeyo. tennis kasta wuxuu leeyahay formula uu ku shaqeeyo. marka la joogo xisaabta iyo physics iyo chemistry haddii aad fahantid examplada ay ku shaqeeyaan exampleka uu ku shaqeeyo physicska haddaad fahantid examplekiisa physics waa haysaa. sidoo kale xisaab formula uu ku shaqeeyo haddaad fahantid formaliisa waa haysaa. si lamid ah chemistryna formula uu ku shaqeeyo haddaad fahantid chemistry waa haysaa. sida lamid ahna tennisyaduna haddaad fahantid formulaha ay ku shaqeeyaan ayagana waa fahmi kartaa. balse haddaa formula ay ku shaqeeyaan aan fahmi karin ayagana ma fahmaysid. marka tennis kasta waxaa lagu fahmaa formulaha. haddaa formula aad haysid tenniska waa haystaa wax kasta mid kasta dhinac kasta oo ku imaado waad haysaa tenniska. okay formula of simple future tennis. qaacidada ama formula uu leeyahay simple future tennis muxuu yahay waxaa noo lahay subject ficil sameeye muxuu noqon karaa ficil sameeye maxaa la ficil sameeye labo noqon karaa inuu noqdo ficil sameeye noun ah ama inuu noqdo ficil sameeye pronoun ah. noun maxaa la waa grammar waa qaadan doonaa. noun maxaa la noun waa magac keli waa magacu qeexaa bis magac waa. pronoun maxay tahay magacu yaalo waa. pronoun maxaa waaye todoba pronoun aa jirto todoba pronouns ayaa jirto maxay kala yihiin I you we they she he it intaas maxay yihiin pronouns aa la nouns yaa waaye waa magacyada waa cali axmed cabdi caasho faarax teacher student present management police intaas dhan maxay yihiin noun waa. marka subjectkiya labadaas waa noqon karaa. balaas haddii ficil sameeyaha la keeno ama subjecti u yimaado ha lagu daraa la will ama shal. luma dhihin will iyo shal ku daro luma dhihin. haddii ficil sameeyaha imaado ha lagu daro will ama ha lagu daro shal. will iyo shal yaa waaye qaarna will ay ku shaqeeyaan qaarna shal ay ku shaqeeyaan. yaa will ku shaqeeyo yaana shal ku shaqeeyo. will waxaa ku shaqeeyo they she he it waxay ku shaqeeyaan will iyo nouniska.
laakiin shall waxaa ku shaqeeyo I iyo we. I shall, we shall. You can't say they shall not. Ma dhihi kartid. She shall, he shall not, he will, they will, he will. Waa dhihi kartaa laakiin ma dhihi kartid he shall ma dhihi kartid. balse buwaagta qaar waxay qoraan I will. waa dhihi kartaa buwaagta qaar say dhahaan, laakiin buwaagta badanaa waxay qoraan in la dhihi karo I shall iyo we shall keliya. in I iyo we iyo shall ay ku shaqeeyaan marka la joogo tenniska afraad, balse buwaagta kale waxay sheegaan in la dhihi karo I will la dhihi karo sheegaan, balse buwaagta inta ugu badan I shall iyo we shall ay ku shaqeeyaan. Okay, labadaas mid haddaa keentid plus verb waa inaan keentaa ficilkii, kadib waa inaan keentaa plus object, ficil guddoomihii waa inaan keentaa. intaan example ku gudbin waxaan rabaa example oo mandkii aan ka keenayo oona formula ku waafaqsan. examplada xataa formula ku waafaqsan, balse anoo exampleka ku dhex anoo formula ku dhex jiro oo sharxayo aan waxaan rabaa example inaan dhag ka siiyaan rabaa. Okay, example waxaan soo qaatay the teacher will explain to us the lesson. waxaan dhahay macalinku wuxuu noo sharxi doonaa cashirkana. The teacher will explain to us the lesson. macalinku wuxuu noo sharxi doonaa cashirkan. tenniskaas yuu waafaqsan yahay ama jumladaas yay waafaqsan tahay? waxay waafaqsan tahay tenniska hadda aan ku jirno simple future tennis waa waafaqsan tahay. ilaa waxaan oolahay simple future tennis waa dhacdo dhici doonta waa, wuxuu ka hadlaa dhacdo dhici doonta ama fal dhici doonta ka hadlaa. tenniska ama example hadda aan soo qaadano waxay tahay waa dhacdo dhici doonta waa. waxaan dhahay the teacher macalinku will explain to us wuxuu noo sharxi doonaa the lesson cashirkan. ma dhihin macalinka wuxuu noo sharxaa, ma dhihin macalinka wuxuu noo sharxoya, ma dhihin macalinka wuxuu noo sharxay, ma dhihin, balse waxaan dhahay macalinku wuxuu noo sharxi doonaa cashirka. waxay ku tusaysaa marka inuu jumladaasi ay tahay jumlad ama tenniskaas uu yahay tennis afraad oo inuu yahay fal dhici doona ama dhacdo dhici doonta inuu yahay ayuu noo cadeynaa marka. the teacher maxay tahay? waa subject, waa ficil sameeyihii waa. yaanay ka tahay waa subject noun waa. teacher maxaa tahay? noun waa. aye will shall siyaaliisi maxaa siiyey? willansi maadaama noun ay ku shaqeeyaan auxiliary uu yahay will uu yahay. plus verb kan verbka yaa waa explain waa. plus object kan object yaa waa lesson waa. waxaa jiri doonta iyadoo mar la falanqeyn doono mid kasta meeloo ka imaaday kan yaa waa hebel waaye oo hebel waan baran doonaa markaan qaadano garaamarada, laakiin wili ma gaarin garaamada. balse hadda anigu waxa muhiimadan u yahay waa tenniska waa inaan fahmi karnaa oo keliya, laakiin garaamadaasi waan qaadan doonaa hadduu ilaaha idmo. okay, waxaan fahmaya exampleka hadda in la fahmay. ile formulaha wuxuu waafaqsan yahay exampleka waafaqsan yahay. every examples wuxuu waafaqsan yahay formula uu leeyahay tenniskaas waafaqsan yahay. kama baxsano tenniska iyo formula kama baxsano, mana kala dheero, waa mid isku mid ah. ilaa formulaasi wuxuu ku cadeynaa tenniskaas examplekaas ugu cadeynaa bis. okay, example of simple future tense. example ku saabsan tenniska afraad. Ko, I shall come to school tomorrow balle. I shall come waa imaan doonaa buu yidhi to school schoolka tomorrow berito. gorma imaanu hadda maya, markasta ma imaadaa maya, shalay ma imaaday maya, gorma imaan doonaa berito. maanta waa jimco, beri sabti imaana insha allah. marka wuxuu dhahay I shall come to school, I aniga shall come waa imaan doonaa buu yidhi to school schoolka tomorrow berito. maxay tahay marka? waa affirmative, hadal iska caadi waa imaan doonaa schoolka baa tiri. adoo jidka isku socdaa waxaa aragtay qof oo isku fasal aad tihiin, waxaan dhahday waa imaan doonaa iskuulka. ama adigoo laba maalin ama hal maalin iskuulka ka maqan qof is aragteen oo isku fasal tihiin, wuxuu ku dhahay niyo maxaa waay ayaanta maxaa ku dhacay? niyo waa imaan doonaa berida imaan doonaa iskuulka. maxaa marka waa future soo ma berito imaan doontaa. marka waxay tahay waa affirmative ama present waaye ama statement waa. inta waa dhigi kartaa waa hadal iska caadi ah. su-aalka question ka dhig shal kale banaanku bixbis ay gudaha soo geli. hadda jumlo oo affirmative ama jumlo hadal iska caadiya oo loo dhaho u bedel question ama su'aal u bedel loo dhaho is wareerini. auxiliary meesha ku dhex jira banaanka geey, kadib calaamad su'aal dhab ku dheh. haddii jumladu wax auxiliary meesha ay dhex xaalinteen si waxa jira oo marka hadal caadi oo aan la siinaynin wax auxiliary, kadib waxa fiirinaysa auxiliary oo ku shaqeeyo
kadib banaanka geey meesha ugu dambeysa calaamadaha lab ku dheh macnaha marka had I shall leedahay sax shall soo qaad banaanka geey ayna gudaha soo geli oo macnaha shall I come to school tomorrow miyaan aniga imaan doonaa iskuulka baatiri miyaan aniga imaan doonaa iskuulka berito diid ma ka dhig negative ka dhig macnaha I shall marka eed not lagu darbis macnaha I shall not come ma imaan doono baatiri waa go-aan to iskuulka tomorrow berito iskuul ma imaan doono aniga baatiri waa go-aan qaadasona macnaha marka I shall not come to school tomorrow aniga ma imaan doono iskuulka okay question was negative ka dhig su'aal jidid isla jar ka dhig macnaha shan't I come to school tomorrow so miyaanan aniga imaan doonin baatiri iskuulka berito maxaa shan't I come to school tomorrow so miyaanan anigu imaan doonin iskuulka tomorrow maxaa marka waa question was negative waan dhacdo dhici doonto wa tomorrow future dhici doonto ilaa tenniska magaciisa ku sheega inuu yahay simple future tense inuu yahay tennisku inuu ka hadlo dhacdo maalin dhacdo dhici doonto ama fal dhici doona inuu ka hadlo okay wiil example ka socdo waxaan dhahay he will go to the school tomorrow he isagu will go wuxuu aadi doonaa buu yidhi to the schoolka tomorrow berito affirmative question ka dhigi will banaanku bix macnaha will he go miyuu isaga aadi doonaa to the schoolka tomorrow berito jid ma ka dhig he will not go to the school tomorrow buu yidhi isaga ma aadi doono iskuulku berito questions negative ka dhig won't he go to school tomorrow so miyuusan isagu aadi doonin iskuulku berito example kale you will teach us something you adigu will teach us waxaana bari doontaa something shay baana bari doontaa baati goor baan bari doontaa future mustaqbalka berito su'aal kadib will you teach us something miyaad adiguna bari doontaa shay baad tiri diid ma gadhig you will not teach us something adigu mana bari doontid shay baad tiri you will not teach us something adigu mana bari doontid shay baad tiri questions negative kadhig what do you teach us something so miyaadan adigu na bari doonin shay baad tiri wali marka you will teach us something adigu waxaana bari doontaa shay waana affirmative waa midaasi jumladaasi su'aal ka dhig will you teach us something miyaad adigu na bari doontaa shay diid ma ka dhig you will not teach us something adigu mana bari doontid shay su'aal diid ma wadata ka dhig won't you teach us something so miyaadan adigu na bari doonin jumlo baa tiri marka tenniskan afraad wuxuu ka hadlaa dhacdo dhici doonta future dhici doonta marna haddaa fahan tenniskaas waxaa lagu fahmaa qeexitaankiisa waa lagu fahmaa kow sidoo kale waxaa lagu fahmaa example formula lagu fahmaa tenniskaas dhacdadu ka hadla haddaa fahantid formulisna aad fahantid tenniskaasi meel dhinac kasta oo kaaga imaado waad ka shaqey kartaa af soomaali hadduu noqdo hadduu af english oo tennis u yahay tenniska loo bedelo hadduu yahay ama tennis kale oo diyaarsan lagu dhaho tennis afraad u bedel lagu dhaho waad u bedeli kartaa marka goorma u bedeli kartaa markaa tenniska fahantid qaabka u shaqeeyo qeexitaankiisa markaa fahantid formula ku shaqeeyo markaa fahantid kabacdi baa bedeli kartaa balse hadda intaas dhan aad fahmin tenniska ma bedeli kartid tennisyo qoranna oo lacladii lagu dhaho kasoo dhex saar tenniska afraad ee simple feature tennis example ka mid ah inta kasoo dhex saar hadii lagu dhaho ma kasoo dhex saari karo lianna ma fahmin tennis wuxuu yahay qeexitaankiisa fahmin walaa formula oo ku shaqeeya isaga aa fahmin marka inaad tennisyada isku bedeli kartid aana ka shaqeyn kartid waxay ku xiran tahay inaad tennis kasta aad fahantid wuxuu ka hadlayo dhacdo uu yahay iyo qeexitaankiisa iyo formula uu ku shaqeeyo inaad fahantid waa laakiin haddaa fahmi intaasi tenniskan mana aqooni kartid qaabka u shaqeeyo ma aqaani kartid mana ka shaqeyn kartid marka cashirkeena halkaas ayuu ku eg yahay janalku waa janal cusub haddii uu yahay markii koowaad ee aad daawad janalkani fadlan ha ka baqiilin waa codsi share iyo subscribe iyo like intaba dheg noogu sii si adigana aad u hesho casharo iyo grammar iyo tennisyo iyo conversation adigoo ku xiisi geliya adiga oo la dhacdo aadna u noqotid arday ka dhisan dhan kasta haddii ahaan leh dhanka practice-ka
haddii aan la dhanka tennisyada iyo haddii aan la dhanka grammarka ile grammarka aad uu muhiim u yahay tennisyadan aad ay muhiim u yihiin baratiiskana aad uu muhiim u yahay marka fadlan noo saar subscribe share like inta bandhag noogu sii intaas waa codsi